السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا casharadeenii taxanaha ee barashada xisaabta weli waxaynu ku guda jirnaa afartii xisaab falle waxay noo soo dhamaatay qaybtii kala jarista hadda waxaynu usoo gudubnay qaybtii isku dhufashada ama multiplication hoos waxa inoo yeela laba tusaale lambar 1 aynu soo qaadano 32 lagu dhuftay 2 tirada marka ay sidaa tahay xagga midigta ayaan ka bilaabaynaa labada tire isku hoos qoran ayaan isku dhufanaynaa wixii noo soo baxa ayaan xagga hoostooda ku qoraynaa kadib laba ayaan waxaan ku dhufanaynaa 3 wixii noo soo baxay ayaan xagga 3 ku aadan ku qoraynaa okay hadda midigta aynu ka bilaabno waxa inoo yaala 2 ku dhufo marka ay tirada sidaa tahay waxaan kugula talin horta inaad qabataan listida isku dhufashada xagga dambe ayaa in soo dhigi doonaa 2 ku dhufo waa 4 ama waxaad dhigi kartaa laba meelood oo min 2 ah waa 2 lagu daray 2 waa 4 marka 4 hadda maadaama ay tahay tiro hal god ah xagga ayaan ku qornaynaa okay waxaynu u gudbaynaa marka godka xiga oo ah 2 iyo 3 2 ku dhufo waa 6 marka ama waxaad dhihi kartaa 3 meelood oo min 2 ah waa 3 lagu daray 3 waa 6 ama waxaad dhihi kartaa 2 meelood oo min 3 ah waa 3 mar oo la isku daray 2 6 un baa ku soo baxayso marka 6da waxaad ku qoranaysaa godka u dambeeya ayaad ku aadanaysaa oo 3da ku aadan ayaad ku qoraysaa marka waxa inoo soo baxaya 62 sidaa darteed 32 lagu dhuftay 2 waxay noo la mid tahay 62 lambar 2 26 lagu dhuftay 3 xagga midigta labada xigta isku dhufo 3 lagu dhuftay 6 tirada marka ay sidaa tahay 3 lagu dhuftay 6 waa 18 laakiin hadday kugu adagto oo listida wili kor ka qabanin waxaad u isticmaalaysaa 3 meelood oo min 6 ah baad leedahay 6 ku dar waa 12 6 ku dar waa 18 sida ayaad ugu shaqayn kartaa ama waxaad badhihi kartaa 3 meelood oo min 6 ah markaad 18 kaad sida aragno waa tiro laba god ah marka waxaynu qoranaynaa 8 halka ayaan meesha kaga soo tagaynaa okay godka xiga ayaan u gudbaynaa 3 ayaan waxaan ku dhufanaynaa 2 3 marka aan 2 ku dhufano waxa inoo soo baxaya 6 marka hore waxa halka inoo yeelay halba halka noo yeelo oo ka qaadnay 8 halka isaga ahaa ku dar 6da waxa ku soo baxaya 7 maadaama ay tiro hal god tahay halka ku qoro waxa inoo soo baxaya marka 78 sidaa darteed 26 lagu dhuftay 3 waxay noo la mid tahay 78 okay kan waa jadwalkii isku dhufashada wuxuu ka kooban yahay tiro 2 ilaa 9 marka waa jadwalkan aad buu muhiim yahay waxaan kugula talinayaa insha Allah inaad kor ka soo qabataan waadna arki doontaan qaybaha marka aan tagnay isu qaybida aad bay muhiim u tahay isku dhufashada marka insha Allah hadda bilowga ka faa'iideysta insha Allah waxa kale oo kaga tagayaa laylis ayaan idin siinayaa isku soo daykaana 22 lambar 1 22 lagu dhuftay 4 lambar 2 35 lagu dhuftay 4 waxaan kaga tagayaa intaan ku kulmi doono casharadeena kan xiga sida iyo nabadgelyo